والله waxaa xogaa aad iyo aad ii dhibtay runtii sida hadda Cabdi Shakuur ama siyaasiyiin xildhibaanadii hadda Xasan Macalin iyo Saadis yani waxyaabaha hadda socda runtii lagu caburinayo siyaasadda dalka oo aan ogahay runtii haddii aan ka aamusno in la aadi doono jidkii burburka shalay lagu burburay oo dadka laga caburinayay arrintaas waxaa waa dhintay runtii arrintaas inaan ka hadlo oo maaragtay umad Soomaaliyeedna sida waxaa la yidhi daadka iyo dumi guri intay galaan guri kama leexdaan marka ay guriga ugu horeeya gala haddii dadku ka hadli waayo waxay keenaysaa guryo badan inay galaan dad badanna ay dulmigaas ku faafo marka waxaan gartay runtii arrintaas inaan ka hadlo oo aan uga digo dowladda in xuquuqda dastuuriga ee qofka leeyahay aan mar lagu talax tago dowladda waxay sheegtay shalayto oo ay hadleen wasiirka amniga iyo xeer ilaaliyaha qaranka in waarankii lagu soo xiri lahaa loola tegay Cabdiraxmaan Cabdishakuur laakiin uu ka dhaga adeegay isku dhacana sida uu ka dhashay runtii horta waxaa rabaa inaan uga tacsiyo eheladii iyo qaraawadii ay ka dhinteen wiilashii Allah naxariistay hadda guriga isku dhintay wiilashaas waxay ahaan lahaayeen maanta dadka dalka difaacay oo runtii ka difaacay al-shabaab iyo dadka kaleeto dalka haysta si ayaan daraayo si runtii yani negligence ayaa carruurtaasi ku dhinteen haddii ninka kan loo dan lahaa waxay ahayd boliis horta in loo soo diro oo boliiska ay yimaadaan warrant ku keenaan maxkamadda looga waco the processkaas la qaato miiska sideeda waa ciidanka sirdoonka weye waxaa loogu talagalay howlo gaar ah oo runtii lagula dagaalay cadowga al-shabaabi in siyaasiyiin iyo shaksiyaad siyaasadda ku jira ama xildhibaano iyo loo dirana arrintaas waa arrin horta aad khatarteeda leh haddii aynan haddan ka hadlinna runtii nagu sii deyn kartaa jid burbur ah sideed u aragtaa eedeymaha